محلنا مانتا السلام عليكم مانتا باربيكيو قبنا لو سو دواادو Soomaali waa inuu furan tahay welcome guulid hawsha wada meesha ka soo dheebo aad guulid Oslo chef maxalada maad barbecue chicken soo dhawo maanta waa shidanaanay barbecue sani family caruur wax ka maqan ma jiraan aad libax tafadal thank you very much hadda waa inaa gudaha u sii gudbaa adinkoo isku duuban dhanaantiin waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin qof idinma sheegi karo waad kala maqaan duwan tihiin laakiin wallahi ana aad u faraxsan farxadeeda lama soo koobi karo waxaan leeyahay saad noogu timaadeen noo sharafsan Allah idin sharfo taas waa soo dhaweyntii tii shaqada markaa u gudubno hadalku inuu yaraado la xukumay marka maadaama tii shaqada aan halkaan isugu nimid ay tahay muhiimadeeda inaan maanta halkaan ka sheegno magaceena magaca oo aan wada leenahay dhammaan cali barqadla ugu dambeeyay ayaa soo waday dhalinyarada South London City aan u midayn lahayn guryaha u tagi lahayn waxaanta qiyaas waxa ku qaadatiin waxa meesha taagan horta aabadan warkiisa yaa la sheegin waxa meesha taagan waa aabayaal inta badan 190 waxa soo baxay waa aabayaal waxaan ka shaqeynay inaan inteena isku nimaano waxay noo tahay farxad gooni South London Somali Youth Council ma ahan wax qolo gooni ay leedahay maanta halkan waxa isugu nimid waa South London Family Day waxa la dhaho waxaa jooga dad iga mudan South London iga experience badan akhyaar ay ku jiraan Cabsaaq Gaagaale Cabdikariin Bishaar oo South London Somali communities ka long time soo shaqeeyay waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin garab taagan tihiin waxa meesha fadhiya waa caruurteena waxaan rabnaa inay ka soo baxaan Ronaldo fiirsanaa iyo hebelo
kuweena waxaa ku jira dad caadi ah inaan waqti gelino oo aan dhahno soo saarno aan wadnihi siino aan u baahana waqti u baahanta waalidiintu waqti u baahin isku soo bixidana maqaamkan waqti u baahan hadal kooban Southern Somali Youth Council today waxay rabtaa inay idin soo bandhigto program aan sameynay hal hooyadiisa fadhisa waxaan thank you very much inaad waayadana marka waxaan rabaa inuu macalin Mandela noo soo bandhigo ninkoo wada maqlaaya inuu noo soo bandhigo qorshaha Mandela FC iyo carruurta oo tababaraya iyo programkiisa inuu annagana halkaan ku wada maqalno barnaamijkan sameeyay iyo coronavirus ka dhacay orod anariyada xaafad la bilaaway ay ugu baraarujisay inaan maarta carruurta maanta la shaqeeyo ama u qabto soo maanta laga bilaabo waxaan doonayaa from 5 years old ilaa 14 years old inaan ku sameeyno football training xaafadeena South East London oo ah from the age from 5 ilaa 14 ons before training sameeyno from 12:30 إلا محور 2:30 from now إن شاء الله from every Sunday إن شاء الله. شاء يشتغل 4 كست إن شاء الله وحن دنيا استرتم ليدو باك مال لازلادو باك الله ليدو باك إننا فوتبول تريننج أيضا قصة منه from 2 o'clock إلا 4 o'clock. ضد حاجة جوا يسوي عاي بأس جوا يكلاب injection يمحوها تويتين سوي عندها منديل وحن دنيا عرضنا هنا ومدوي عدان يسوي كجرعة إننا عاوزين دنيا هيدهن أيضا وحنا أوكي إن شاء الله حقنا تريننا كابتن دونا دولا أنا تيم كي قصور سقنا عاصمتنا إن شاء الله وحين الله يا مانتا عليه عالم ما تنتهين إلى غير هذا السيو عربتني كتب عرّ مانتا فيجر ومانتا عرّتا أنا ما تودقوني كوني مانتا يا مانتا فيجر أباهن أو وقفي عن أباهن إن أي كتب عرّنو أو ناجينو حوق جنو أماتنا قلنا أي مانتا نجمض وأنا ما هستين دمانتين waxay runtii ii tahay farxad aan la soo koobi karin inaan maanta ka qayb galo kulankan qiimaha badan oo aan u arko walow aan maqlahay aan jeclayn haddana magacaas inaan sheego waxaa khasab noqotay inaan sheego oo ah markii ugu horeysay dad Soomaaliyeed oo degan dalkan Ingiriiska ay kulan noocan oo kala isugu yimaadaan anigu waxaan ka qayb galay dhowr shir wadamada ku yaala galbeedka Yurub wax iiga farxad badan maanta ma jirto waxaan u mahad celinayaa magaca dadka halkan jooga guddiga qabanqaabada oo uu gudoomiye u yahay walaalkay Maxamed Deelaaf iyo guddigii ka horeeyay ee maanta halkan in la soo gaaro ka shaqeeyay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Mandela iyo dhammaan qaybaha bulshada magac kasta oo ay halkan ku joogaan hawsha qiimaha leh ay shacbiga Soomaaliyeed u bilaabeen inay u qabtaan waa la sheegay haddii ubadkaagu ama ubadkiinu ama kuwaygu ay ka badbaadeen xabsiyada dalkan Ingiriiska iyo galbeedka carruur badan oo Soomaaliyeed ayaa xabsiyada ku jirta carruurta halkan joogta maanta waxaa tusaale idinkugu filan halkii guriga lagu celcelin lahaa maanta markii la ciyaarsiiyey farxadda inay idinla wadaagaan sida ay u fadhiyaan quruxdeeda wax la heli karaa ma dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed ama waa yaani hadda Maxamed Qaran wuxuu lahaa aabbayaasha wax badan baa leedahay maxaa yeelay maqaaxiyadaha kama dhamaadaan gabdhuhuna kama dhamaadaan inay ururiyaan ayuuto maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa investmentiga annaka inta la ka bilaabo ballanqaadkaygii shalay ee ahaa inta laga gaarayo in dowladda Ingiriiska ay ka helaan wixii dhaqaale ah ee dadka la isugu keeni karo xaafadaha aan ka soo jeedno ee South London in dhinacaas 10 qof laga qaado kulanka xiga wixii maanta gabdhihii dabka noo galay waa mahadsan yihiin kuwii suuqa adeega ka keenay waa mahadsan yihiin ninna inaanan culays ku noqonin waxaan anigu ballan qaadayaa carruurta halkan joogta waxaa boorsadayda ku jirta 50 buug oo aan ugu talagalay inay carruurta Soomaaliyeed maxaa yeelay fi aabbaanahay marka carruurta iskoolka la geeyo challenge waxay kula jiraan sidii ay qoraysan lahaayeen carruurta asaagooda maadaama aysan fursad u helin hooyadu intii ay ururinaysay ayuutadu aysan fursad u helin inay library-ga geyso aabuhu uusan fursad u helin inuu ka doono dugsiyada waxbarashada carruurtaadu waxay dugsiyada la dhigtaan kuwa ka horeeya maxaa yeelay hooyadood iyo aabahood dhaqan ahaan waxaa la geeyaa golaha waxbarashada waxaan u qaybin doonaa carruurta halkan joogta min 2 buug intii u gaaraan 25 30 ka buug waa free inaad halkii adaan awoodi weydeen inaad goobaha waxbarashada geystaan inaad guriga ugu akhrisaan sidii aan horay u ballan qaaday wixii contribution ah
oo ku saabsan in ubadkeenna sidan oo kale la isugu keeno waxaan codsanayaa qaybta koowaad aniga in la iga soo doono waa konton buug cunug kasta 2 buug oo kala noocaad siin kartaan aad u mahadsantihiin contributionku maanta bilow ma aha ilaa inta aan ka geeriyoonayo waa soconaya markan waqtigiisa qaali uga mahad celinaynaa walaalkan Bishaar oo asagana kelmad aan sii doono insha Allah tacaala si uu ula wadaago dadka maanta ka soo qayb gala meeshan insha Allah ka hadal in laga yar ma ahayn horta isaga wuxuu isku fuuqsaday laakiin bar hadii la xusay insha Allah waan soo koobay hadii Ilaahay ira horta waxaan u mahad celinayaa teamka especially team Mandela oo aan ka mid ahay anigu macallinka ciyaalka kale ciyaar macallin oo maana xataa adiisa ka mid ahay aan mahad celinayaa horta arrinkan waa arrin dhiirigelin leh waa ani kolba shakhsiyan oo markii ugu horreysay ka soo qayb galo meel Soomaali barbecue ku samaysatay waalidiinta iyo carruurta iskugu yimaadeen aad baa maxaan ku raahdaa aan ugu faraxsanahay hadalkaaba iga dhumayaba sababtoo ah waxaan hore ula kulmin baa dhex taaganahay dadkii hore u soo wadayna waxaan leenahay aad baa ugu mahadsantihiin especially reestreha maanta marti noo ah welcome to East London reestreha mas'uulkiin guli jireen waa idin soo dhaweynaynaa odayaasha bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasallam war waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadnaqo guddiga South London Youth Council oo soo qaban qaabiyey iyo Mandela FC runtii maanta sharaf gaar ah tahay intaanu caruura iyo aabayaashii majority la eedayn jiray ee maanta meeshan u badan ilaa 100 ku joogaan waxaa si gaar ah sharaf igu ah saaxiibkii Xuseen saaxiibkii Cali Baba Cabdirashiid Fanax oo odageena ahay oo runtii muddo waxaa meeshaan fadhiya legends ay ka mid yihiin legend Ablisha iyo legend Xenuuq runtii aad sharaf igu tahay inaan mataqaanaa meeshan kulanno saxaafadda iyo fanaaniintana iyo hooyooyinka soo qayb gal runtii aad idin salaam oo mahadsantihiin أنا كل هذا مرة بمركة عن ربع صدق قضب أنا أنصار أنا محلي هذا إيشك حوجة قضب كوات وقضب أنا ربع أنا سومالي ده متقارنا إيشك وقومها النقاء قولنا كجارني وقيمت وحبر الشرع المهن قيمت وحبر الشرع وحكي جارين نقول وأنا وقومها النقاء جارن هو يوينك أبياش معك عطسنا سيدا ما تقصوا قيب قال ماشان إنه يمروا البقى لأن يرد الوقت هاجر كسوق قيب قلان طلبات مرة بعد عرور بدنا ماتنا لجوكتو ونبقى عرور تنجح هيست تاسمر كأن أضياشة وحنجعلان لها سجار إن متقان إيجالي وجود هذا النوع تصدحات كنت أنا كسوق بجوير ربو حواي سومالي ذا جوكتو قربها جارهان UK وكم مقارنة هاي سياسة ده ما نكقب هذا النوع حالي ما هنهبلور أنا الله الله يصاحبك عبد الناصر زول إنجنير كوجوجو سوماليا أسوي لجوجو برايم منستر حصل على خيره هل سؤالي ويديا لبدود وحيدا محاكا اللي في سببتا أي سومالي السياسة دوغا مقامتا وفن وحان كبالان قادني انتنا ربا أنيقو متقانا كاشانايو رمان جالي دا ساوث لندن إيستيجي ويستيجي انتا اسكو تغنو inaan u bilaawno reer UK sidii generation-kan maanta meeshaan fadhiyo kontumeeyada ah aan ugu mataqaanaa isha horseedi lahayn jidka siyaasadda loo maran u tusi lahayn si ay berrito noogu matalaan oo ay mataqaanaa waana ogtihiin qofka hadduu mar siyaasadda ka maqan yahana xaqaa naga maqan waxaan ka maqannahay mansabka siyaasadda UK waa ka maqannahay waxaana laga rabaa marka oo cabdinashiid zoole iyo aniga si gaar uga ballan qaadnay prime minister xasan cali khayre sidii next 5 years ama 10 years هل أما لبا ما لو بدنا كده هيدا كل عليه هل أما لبا MB أو نوجه بغير أو صارن لهين وعكوا سنة أمريكا أوركان مانت ومحمد قرن المدح ذكية هاي صاحبك مانديلا وأساسي سمت قانا ودك أسفجرو إن أرنتاس أنا دليسن وإن كنت هاجرنا إن شاء الله تعالى هي هون وإن قرب تاجنا وحنوصل الله أنا أمريكا مناسبة دي معناه هذا أمريكا مانديل FC أنا أكو هاللايا South London أما South West London مقعد أنا كوها اللايو وحن كابلن قاذينا مدحدي أنا هاي واسدي أفرديو سبورتي أفرديو عاقلين تي أفرديو مرة دي عبد الشيد فنح يحلبان فرديان
على شن وجوه أغيرتك الرالها اللي جاء دات كلام إيه جوجان حافظ دجن أي لجمدي حنوق يو أبليش وبسيد اللي جوجان فيري مانديلا جرب كاجن تاجن هاي هذين نقول له قرش هذين نقول له سيدي أمانة برنامج كلوب باللعبي وحان ربع مركب أبيش يوينك بالله عليك وفا أنت نو المهنة قرنا مانديلا هنوقف فايدي المهنة مسكحوا هذا السوق جيركودن هذا السوق أنا قلنا والدين وحان ربنا متقنا سيدي أن وقوم معقول سنة أو تاجرنا مانديلا مرة بعد كسوع لنا إيجالية ساوث لندن ساوث لندن يوث كونسل قرب كنا تاجرنا هاي هري هبين بابو سلوك الواجي صاحبك معلن كان جالي سمجيجا صاحب العر جود جدا كجرا منبران كهاي وأن تاجر سنة هاي وما سنتين ده اللي أنا قلنا كمديه حافظينه واي معلم كده وين حافظينه واي واحد فرحة يرين يوح لقونا الوضع واحد أوش النوب بالله بتروح بدن أنا قاعد بياش حافظنا دقنا نهاي مدة روح نكون تامين هنا هلنا أكشن كنوع أنا أما فدية النوع أنا أما إسقاط كنوع أنا أساسا إنه مسير تقلين عادي وقام هاد علينا أنا خيارت سود دالي وكمل دليل ونوقو كان حافظني وحن لنا هاي ما هذا يدك قارتو سونا الدوادة أنا أقول الله مقع عضياش حافظه مقع كومونيتيه عبد الكريم قدوميهنا يا مقع عضياش إن هالكان سفن هنا أنا أفضلنا هنجا مركز سونا الدوادة فرحة نوتاي ويلكم وأنا شيء مدن إلا دي رجليو وأنا ذيك ما هاد علينا سونا الدوادة ورحمة الله وبركاته هذا المعانتي سيو وحي هاي وحد من تطيق ويناي وحن ربعنا سلامه مرت شرفته مامدا هوينك عروت دمان وحن ربعنا انهم هاد علي مركه هore walaalkay Mandela iyo Xaway Maxamed Qaran iyo Sheekh Nuur hadii aan nahay bahda saaxib al-Arab waxaan taageersanahay walaalkeen hoosh oo bilaabay mar walbana waxaan maanta ka cadeynaa in aan agtiisanahay wax walba oo nooga baahdo inaan si fiican aan ula shaqeyn doono anigoo ku hadlaya magaca saaxib al-Arab ama sitiin أبيالك ولوينك باشا وقاسيدا بعد سبورتيكا تمان عروضة ينتك حفلتنا نولتي أرتقلبونا أحسن آذان وما سنتين سلام كدب وحان آدو فرح سنة هاي رنتي قلبتا وحقبتك أي مانتا أي سميين ولا لها صوت لندن كوميونيتا وحان ورجينا يا إني هالكا دو كسي وطان هالقبسي أو حاجري لبان حرس جانكو أنو يروح عرورتا عن سوق هذا ولكن قرأ لاسي مرك عرورتا وحن لو قبتو هذا وفرح سنة هاي قلبت مانديلا إيو كوستيم كيسا رنتي وحبينا قبتين سيدا الشيء سيدنا وحوان ورجينا إنا ماشي هذا كسي وديد عاجسين أو قعان سيسين هذا وفرح سنة هاي قدومي محمد قرن يو عبدي يا شيخ نور أيضا حوشي نماشي كسي وذا